أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإقرأ education program waxaan soo jeedinayaa anigoo maxamuud cabdirashiid muuse sida casharadayda imtixaanaha ahaa aad nooga barateenba dhowaan waxaan bilownay saa idiin sheegnay casharo waxa la yidhaahdo biology casharkii ugu horreeyey waxaan soo sii daynay wiigii hore sida aad nooga barateenba Iqra education program waxaan idiin soo jeedinaa tutorials oo aan uga faa'iideynayno dhammaan ardayda Soomaaliyeed kadib markaan ogaanay nagu kaliftay aanu ka weynay waxa la yiraahdo wax tutorial oo Soomaali ku baxayo oo ardayda faa'iido ah inaysan YouTube ku jirin halka ummadaha kale ama luqadaha kale oo dhan luqad walba laga helayo ardayda waxa qofka marka uu baranayo inuu maaddo kasta maadaday noqotaba uu ka heli karo qofka ardayga ah luqadiisii cilmiga iyo luqadiisii oo free ah uu ka heli karo qaabkan aan ku shaqeyno ma ahan qaab aan lacag ku raadino ama qaab aan dadka online ka lacag kaga qaadno balse hadda systemka hadda aan sameyno way jiraan dad online private courses casharo private qaato oo waxa la yiraahdo bixiya lacag fee ah laakiin sidaas si lamid ah tan channelkan soo gelina waa free qof walbana si free ku daawan kara ilaahay idinkiisa waxa la yiraahdo waxaan rajeynaynaa waxa la yiraahdo inaad ka faa'iideysan doontaan annagana acmaasheena saalixa oo ilaahay noogu dari doono inta haddaan uga gudbo xasuusin casharkii hore aan qaadanay wuxuu ahaa cellka iyo waxa la yiraahdo cell organelleska waxyaabaha cellka gudihiisa ku jira oo aan sheegnay in nucleuska ay kamid tahay oo sheegnay mitochondria inay kamid tahay ribosome cytoplasm iyo cell membrane plantiga iyo animalka waxay ku kala duwan yihiin waan sheegnay waxaan kaloo sheegnay waxa la yiraahdo bacteriada waxay kaga duwan tahay animal and plantiska at the same time marka hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno marka waxa la yiraahdo waxa jira waxa saddex cell baan soo aragnay oo hore u soo qeexnay waxaan soo qeexnay typical cells baa la yiraahdaa cellska caadiga ah normalka ah bacterial cell animal cell iyo waxa la yiraahdo plant cell okay waxa jira marka specialized cell la yiraahdo special waxay u yihiin structure-kooda wuxuu matalayaa hadba shaqada ay qabanayaan ayuu structure-ka ay u samaysan yihiin ayuu matalayaa okay tusaale ahaan haddaan u nimaano waxa la yiraahdo multicellular organism contains many different types of cells multicellular organisms waxay ka kooban yihiin ay leeyihiin cells kala duwan oo shaqooyin kala duwan qabta each and every cell wuxuu leeyahay shaqo asaga oo gaar ah oo uu qabto cell la shaqo ma jiro okay which are specialized to carry out particular function marka cellskaasi multicellular uu ka samaysan yahay mid walba wuxuu leeyahay particular function uu gaar u yahay specialized u yahay haddaba okay a large number of specialized cells together make up tissue marka specialized cell group ah markay isu yimaadaan waxay sameynayaan waxa la yiraahdo tissuegaas and various tissues together make up organ casharka hore ku soo sheegnay cellsku group of cells waxay sameynayaan waxa la yiraahdo tissue group of tissue waxay sameynayaan waxa loo yaqaano organ okay specialized cellska animalka iyo plantiska ayaa waxay leeyihiin specialized cellska bacteria marka la yimaado male specialized cells okay haddaan u nimaano marka si guud haddaan ku fahansiiyo specialized cellska animalka waa saddex qaybood qaybta koowaad maskaxda ku hay qaybta koowaad waxa la yiraahdaa muscle cells kaasi markay group of cells noqdaan waxay isku noqonayaan waxa la yiraahdo muscle tissue group of muscle tissue waxay noqonayaan waxay ka samaysan waxa la yiraahdo heart okay second waxa jira waxa la yiraahdo nerve cells ka waxa kamid ah sensor neuron iyo waxa kamid ah waxa loo yaqaano waxa la yiraahdo sensor neuron kaasi marka group of nerve cells markay soo tagaan nerve tissue noqonayaan nerve tissue gaas wuxuu noqonayaa brain organ ah okay waxa kale oo iyadana jira waxa la yiraahdo blood cells oo animal ku leeyahay blood cell kaasi ama RBC buu noqonayaa ama WBC buu noqonayaa
then haddaan marka u nimaano kan koowaad haddaan sharaxno okay muscle cellsku waxa weeyaan these are long way dheer yihiin muscle cellsku waa long waa dheer yihiin waa thin waa khafiif waxa la yiraahdo which contract to cause the movement waxay sameynayaan waxa la yiraahdo movement ayay sameeyaan markay sameynayaan waxay sameeyaan waxa la yiraahdo contraction then waxa la yiraahdo the cells contain a large number of mitochondria cellkani muscle cellka wuxuu ka kooban yahay large number of mitochondria number aad u badan oo mitochondria saan hore sheegnay waxay qayb ka qaadataa production ama waxa la yiraahdo respiration ama cellka ayay waxay siisaa energy so if there is large number of mitochondria means waxa la yiraahdo cellkan wuxuu u baahan yahay energy tiro badan sababtoo wuxuu sameynayaa movement haddii dhaqdhaqaaq la sameynayo waxaa loo baahan yahay energy tiro badan okay so the number waxa la yiraahdo the cell contains a large number of mitochondria cellkan wuxuu ka kooban yahay number badan oo mitochondria to produce si uu soo saaro u fiirsaya si uu u soo saaro a large amount of energy amount tiro badan oo energy ah required kaasoo looga baahan yahay for this contraction marka musclesku waxay sameeyaan contraction marna waxa la yiraahdo way soo ciririyaan marna waxa la yiraahdo way fidaan marka inuu marna waxa la yiraahdo musclekii waxa la yiraahdo uu kala fido marna uu isu yimaado wuxuu u baahan yahay movement okay second one waxaan tagaynaa waxa la yiraahdo sperm cellku waxa weeyaan spermada ka sameysma waxa la yiraahdo ka sameysma nooluhu ka sameysmaan so sperm cellku wuxuu u baahan yahay inuu helo waxa la yiraahdo egg cell si uu u sameeyo fertilization bacrimis uu sameeyo marka sperm cellku wuxuu qabtaa particular function shaqo gaar ah ayuu qabtaa is to fertilize an egg cell si uu fertilization bacrimin ugu sameeyo egg cellka so egg cellka iyo sperm cellka labadaba waxa weeyaan specialized waxa la yiraahdo cells bay ka mid yihiin shaqooyin gaar ah ayay qabtaan labadoodu midba shaqo gaar ah ayuu qabtaa isu imaanshahooduna waxa uu keenayaa waxa la yiraahdo in fertilization uu sameysmo kabacdina halkaas waxa la yiraahdo uu ilmo ka sameysmo ama cells caadiga laga process gareeyo si reproductionka loo sameeyo so it has a specialized tail waxa uu leeyahay sperm cellku tail sign dheer ayuu leeyahay Soomaalidu waxa ugu macnayn karnaa kaliya qofkii aan lab aan ku arag wax leeyahay lulumada hadda aragtay barkadaha ama meelaha biyaha yaalaan gasha saynta yartaa leh madaxana u kuusan ayuu u egyahay lulumada ayuu u egyahay marka sign ayuu leeyahay sayntaas maxay u fududeynaysaa to swim forward an egg si uu egg cellka u aado ayay wax u fududeyn sayntaasi inuu ku dabaasho okay the head of sperm headka hore oo sperm cellku contains wuxuu ka kooban yahay enzyme ayuu ka kooban yahay enzymekaasi muxuu u fududeynayaa to digest the exterior of the egg xuubka sare ee egg cellka si uu ugu burburiyo ayuu u isticmaalaya marka si uu halka uga gudbo wuxuu u baahan yahay enzymekan ayaa wuxuu u fududeynayaa in uu gudaha u galo egg cellka which allows kaasoo u fududeynaya enzymeka the sperm to enter the egg inuu gudaha egg u galo and fuse una qabsado okay saan sheegnay waxa weeyaan headka hore waxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay nucleuskii waxay kala ka kooban tahay enzymekii surka intiisa u dhowna waxay ku leedahay wax la yiraahdo mitochondria badan bay ku seetaa mitochondriadaasi waxay u fududeynaysaa cellkani inuu movement sameeyo oo meel ka dhaqaaqo oo meel kale u tago okay and then waxaa jira nerve cellkan waxa la yiraahdo this cells wuxuu ka kooban yahay from connection with the other nerve cellskana waxay connection la leedahay other nerve cellska kale ayuu connection leeyahay to create the huge network so uu sameeyo network ama isku xirnaansho weyn which is used to transmit impulses through the body fariimaha si jirka loogu kala qaado loogu kala gudbiyo meel to meel si fariimaha jirka loogu kala gudbiyo okay this allows also wuxuu fududeynayaa nerve cellka to coordinate the movement and thoughts dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha maskaxda kusoo dhacaya oo maskaxdu ay amrayso ayuu fududeynayaa inuu meel
ka soo qaado kabacdina meel kalena u geeyo. Okay, waxa la yiraahdo marka tani wuxuu fududeynayaa marka waxa la yiraahdo reportka maskaxda in waxa la yiraahdo ama movementiga inuu fududeeyo. Okay, waxa kale oo ku xiga red blood cells. Red blood cellsku ama WBC-ga blood cells waa la isku yiraahdaa ayagoo dhan way yaryar yihiin, especially red blood cellsku biochemical wuxuu u samaysan yahay qaab inkasta oo structure-kiisu uu kala duwan yahay. marka la yiraahdo sickle cell anemia dadka qaba iyo dadka normal RBC-gooda caadiga uu kala duwan yahay. marka laakiin shape-kiisa inta badan waa concave, qaab concave uu samaysan yahay, uu soo xeeran yahay, gudaha ayuuna wax la yiraahdo u godan yahay. Okay, to increase their surface area to allow them to squeeze through the tiny blood capillaries. Okay, their function-kooda waxa weeye to transport oxygen. shaqada ay qabtaan waxa la yiraahdo waxay oxygen-ka ayay wax la yiraahdo transportation ku sameeyaan around the body, jirka dhan ayay wax la yiraahdo gaarsiiyaan. Also waxay ka kooban yihiin a pigment, waxay ka kooban yihiin nooc color ah. Pigment waa color kaasoo wax la yiraahdo loogu yeero hemoglobin. kaasoo wax la yiraahdo hemoglobinkaasi binding ayuu wuxuu la sameeyaa oxygen-ka. waxa la yiraahdo cells-kani ma lahan wax la yiraahdo they lack in nucleus, wax nucleus ma lahan. marka waxa la yiraahdo laakiin pigmentation-kaas ayay leeyihiin oo hemoglobin-ta. Okay, if you go next one, white blood cells ku asaga wax la yiraahdo saan wada ognahay waa immune system-ka. cells-kani fight infection in the body, in infection jirka soo galo ayuu ka hortagaa. and they have irregular shape ayay leeyihiin. wax la yiraahdo shape-koodu shape mucayyana ma ahan. wax la yiraahdo marka waxa ay jirkana u sameeyaan wax la yiraahdo inay defensive u sameeyaan. they also waxay ka kooban yihiin contain enzymes ay ka kooban yihiin kaasoo digestion ku sameynaya microbeska iyo wax la yiraahdo waxyaabaha harmless substanceska ay jirka u baahnayn. Okay, marka waxaan soo sheegnay waxa la yiraahdo blood cells-kan soo sheegnay, waxaan soo sheegnay nerve cells-kii, waxaan soo sheegnay waxa la yiraahdo reproduction cells-kii oo egg cell-kii iyo sperm cell-kii ay ka kooban yihiin. waxaan kaloo soo sheegnay waxa la yiraahdo muscle cell-kii. haddaan u nimaano marka plantisku ayagu waxay iyagana leeyihiin wax la yiraahdo specialized cells u gaar ah. Okay, specialized cells-kooda waxaa ka mid ah wax la yiraahdo phloem cells. These cells are involved in transport of sugar into the plant. cells-kani waxa ay wax la yiraahdo transportation qaadaan sugarka iyo waxyaabaha sugarka u baahan yahay geedka ayay wax la yiraahdo transportation ku sameeyaan. Okay, waxa la yiraahdo they also possess waxayna leeyihiin companion cells companion ay leeyihiin with a large nucleus to control the phloem cells. waxay leeyihiin wax la yiraahdo waxayna ka kooban yihiin wax la yiraahdo nucleus kaasoo marka wax la yiraahdo marka ay sameynayaan wax la yiraahdo differentiation ama marka ay badanayaan u fududeynaysa wax la yiraahdo in wax la yiraahdo genetic material-kii uu si fudud wax la yiraahdo generation to generation ugu gudbo. waxaa kaloo jira wax la yiraahdo root hair cells-kani oo plant cell-ka ka mid ah, specialized plant cell-ka. these cells are responsible, ayagu waxay responsible u yihiin for absorbing water, inay biyuhu wax la yiraahdo ay soo nuugaan. Okay, from the soil around the roots. ciidda ku hareeraysan ama inta ku hareeraysan biyaha ka dhow yihiin ayay biyaha waxay ka soo nuugaan wax la yiraahdo dhulka. each cell has a large surface area. cell kasta oo cellalkan ka mid ah wuxuu leeyahay surface ama baaxad sare oo aad u ballaaran wax la yiraahdo taasoo soo nuugi karta maximum water, inta biyaha xaddiga ugu yaraan geedku u baahan yahay ay awood u leedahay inuu soo nuugo. waxaa jira wax la yiraahdo Palisade cells-ku ayagana wax la yiraahdo waxay ku yaalaan leaf-ka, caleenta geedka ku yaalaan. these are found waxa laga helaa wax la yiraahdo in the upper layer of the leaf, dahaarka sare ee waxa laga helaa wax la yiraahdo caleemaha geedka. and their main function shaqadooda ugu badan waxa weeyaan carrying out photosynthesis, inay ka qayb qaataan photosynthesis-ka taasoo ah in wax la yiraahdo sunlight-ka ayagoo isticmaalaya ay samaystaan
in ayagoo isticmaalaya ilayska qoraxda geedku uu ka samaysto energy. They contain waxay ka kooban yihiin large number aad u tiro badan oo chloroplast ah to maximize the photosynthesis si xaddiga ugu sarreeya ee photosynthesiska wax la yiraahdo ay shaqadaas u qabtaan. Okay, sidaan hore u sheegnay wax la yiraahdo waxaan hore uga soo hadalnaa cellskii, hadda waxaan ka hadalnay specialized cellska. casharkan wuxuu noqon doonaa tissue iyo organka. waxa la yiraahdo inaan macluumaad guud ka qaadano haddii Ilaahay idinkiisa ka dhigo. insha Allah waxaan rajeynaynaa casharkan haddii aad ka faa'iidaysatay oo uu ku anfacay, fadlan gaarsii, sababtoo ah dhammaan wuxuu muhiim u yahay ardayda dugsiga sare dhigata. hadduu jiro arday dugsi sare dhigta ama arday jaamacad dhiganaya, hadda jaamacad bilaabay, wuxuu u baahan yahay macluumaadkan kooban. haddii adigu aad ka faa'iiday, u gudbi ardayga walaalkaaya. intaas waxaa laga yaabaa in ajar iyo xasanaad aad ku heshid. midda kalena waxa la yiraahdo, haddii ay jirto wax fikri ah, haddii ay jirto wax su'aalaha casharka ka qabtid, waxa la yiraahdo insha Allah hoos noogu reeb fariintaada. waxa la yiraahdo wixii su'aalaha aad qabtid insha Allah waa kaaga soo jawaabeynaa sida ugu macquulsan. casharadayada haddii aysan horta joogte way nagu adagtahay inay joogto noqoto, sababtoo ah qof hawlo kala badan baanu leenahay, hadday shaqo noqon lahayd iyo hadday waxbarasho noqon lahayd. laakiin waxaan ku dadaalaynaa insha Allah isbuucii haddaan hal cashar ay duruuftu noo suuro geliso, isbuuc walba hal cashar ayaan insha Allah soo gudbin doonaa. chemistry maana joojin, laakiin insha Allah asaga laftirkiisa waxa la yiraahdo casharadiisa waa diyaarinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. weliba annagoo casharadii hore dib ugu laabanayno, update samaynayno oo insha Allah tacaala inaan hoos kasoo bilowno ayaan isku dayaynaa. ardayda casharada ku xirnayna insha Allah tacaala sidoodii ayay ahaan doonaan. waa mahadsantihiin dhammaantiin insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.